qariyaatihiin ama waxaad tihiin loohar aan weli dib dambe la isu weydiinayn maanta talada idinkay gacantiina taalla waxaadna ku dhaarateen sida danta dalka iyo dadka ku jirto magaca ilaahay aadna u marteen waadna ogtihiin cirka iyo dhulka haddii la isku dhajiyo inaanay doorasho dhicin inaan jinsiyad jirin yaa Soomaali ah inaan tirakoob jirin inaan xisbiyo sharciyeysan jirin inaan dawlad goboleedyadii sharciyadooda ka hormarin sharci aydan u samaynin nidaamka federaalka iyo nooca la qaadanayo aydan ka hadlin waa ognahay inaan xuduudihii Soomaaliya iyo aysan noo qornayn waan ognahay inaan amni ka jirin dalka guud ahaan jamhuuriyadda loo yacade ilaa Ras Kamboni waan ognahay inaan dastuurkaas afti dadweyne uusan gelin hal cod iyo hal qof saas daraadeed ma dhici karo mar hadduusan dhici karin wixii dalka u dhacaya waa inaad u samaysaan fiiri dawladdii imbigaaka lagu soo dhisay charterkay ku qornayd ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi 2 sano iyo bar iskama dhicin wuxuu ku dhacay charterka waxa ku qornaa nidaamka federaalka inuu dalka uga hergeliyo xukuumaddaas 2 sano iyo bar hadday ka hergelin weyso xukuumadda ku xigto ayaa 1 sano iska leh ma waxaynaan qori karin inaan dhahno dalka 5 sano ee soo socota new roadmap new accord muqdisho accord waxaan rabnaa aan ugu magac darno ayay noqonaysaa amniga intaas lagu sugaa federaalka intaas lagu sameeyna tirakoob intaana lagu sameeyna waxa la leeyahay adduunka qaarkiis waxa ka dhacay iyadoon tirakoob jirna doorasho ka dhacday adduunka doorashada ka dhacday miyaa la mid ah kursiga yaala Kismaayo miyaa la iska yeelayaa in Daynila ama howlwadaag lagu doorto kursiga Hirshabeelle miyaa la iska yeelayaa in Kaaraan lagu doorto rotation wax lagu dooranayo miyaa jira miyaan tagi karnaa meelihii aan ka nimid anigu 5 jeer baan Jowhar baan kursigaygu yaala 5 jeer aan tagay waxaan tagay ergadii markii la xulaayay dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tagay baarlamaankii markii la xulaayay markii baarlamaanka la dooranayay gudoomiye Jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo 6 jeer bay ahayd 6 jeer halkaas maran gudoomiye Jawaari safarka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle aan u raacay marka laga reebo diiwaan gelintii aan tagay marka ergada tagaysay aan soo fiiriyay marka aniga aan registration fee aan bixinayaan tagay iyo markaan codka doonanaay 5 Jowhar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa Jowhar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo oday ugaas inaan raadiye waxa la rabaa runta iyo ilkaha waa la cadeeyaa kitaabka aan marteen inaad ka dhabaysaan maanta inteenaas horta aniga nabadii nolol automatically waa ka tirsanahayo waa hal ku dhaga xisbi maaha waayo wasiir xukuumadda ka tirsanaa dhinac kala ah wasiir xukuumadda ka tirsan marka aan ahay xildhibaannimadeeduna waa ii gaar marka nabadii nolol xisbi maaha xisbi fulaan iyo nabadii nolol maanta xagga dhiga mucaaridi xagga dhiga wala idinku kala qaybinaya 276 baan nahay waxaana weheliye 54 intaas ay saaran tahay dalka meeshii laga aadi lahaa maalin dhaweyd waxaan arkayay xildhibaano iyo senataro dhahaya madaxweynaha waxaan ka rabnaa meesha la aadaay oday baa waxa la yiri duubweyna la dhahaa duubweyne wuxuu madaxa ku watay duub Soomaalida dhaqankeedu waa taqaanaan sahay lama qaadan jirin safar maalmo iyo habeenana waa la soo socon jiray odaygii duubweynaha ahaa baa wuxuu tagay reer buu ku hoyday habeenkii waa la soo dhaweeyay waa la sooray markii la sooray waxa loo diray wuxuu sheegay meesha uu socdo way garanayaan waxay ahayd meel uu habeenka lagu sii hoyanayo waa la baxay habeenkii subaxina waa la sagootiyay waxa la ogyahay meesha uu sii socdo caawa inuu hoyanayo masaafada ay isu jirto meesha uu ka tagay iyo meesha uu hoyanayo meesha uu hoyanayo kala bar meesha uu ka soo tagay iyo meesha kala markay marayaan ayuu wuxuu soo xasuustay koofidii duubka ahayd awgi inuu ka soo tagay asoonba fiirin gadaal uu soo noqday meeshu saaka ka soo baxo caawati war maxaa kugu dhacay ma nabad qabtaa maxaa ku helay mayo duubkii aan ka soo tagay yiri waxa la yiri oo ma laba duubaa wadata mayo hal duubaan wato
ya oo kan madaxa kuu saaran markaasuu ogaan xildhibaanada iyo senatarada inta madaxweynaha la kulmaan ama ra'iisul wasaaraha la kulmo intee loo socdaa dhahaya ayagana gacanta ku haya soomaa dadka duubka raadinaya waxaan rabnaa marka maantay taagan tahay waxaa la rabaa talo iyo arrin dhaba mudana guddoomiye waa soo gunaanada hadalkayga waxaan rabaa in lagu soo gunaanado waxaan rabnaa talo aan meel ku saarno guddi madax bannaan oo baarlamaanka awooddiisa raba inuu maroorsado talo aan meel ku saarno ummadda waxa u danka ah talo aan nala ka sugayaa annagoo ah golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saasaa aqalka sarena nagu raaci doona haddii allaha awoodda leh ogolaado wuxuu yidhi allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye talaa maanta ii dana talo duu ka hari karo oo dalabta lagu soxo dala aan lahayn dulin talo aan la duri karin talo aan lahayn dulin talo aan la duri karin nabadoonka beeshii raacagtada dulsaar ku ah talaa maanta ii dana maanta idinkaa laydinka fadhiyaa muddo kororsi horey u dhacday duruufta hadday keento waa la kororsanaya meel la aada haddii la waayo waa la kordhinaya dadka miyaan isku wada shaatinahay isku wada shaati mani horaan waxaan maqlin jira shaatiyaalaha la isla tasho isla tolan mayna waa kala tolanaynaa haddayba noo kala togolo